maraxow meesha ku aragtay hablaha faani aldooya marka erigaas wuxuu ula jeedaa hadda waxa soo baxay nin ayaantan TikTok inuu soo galo hablihii ku da'ooyaba hablihii oo ku da'ooya ninka waxa la dhahaa السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وولالكين يابس تونيفون له ورهي أديقا هل كان وعاكوا هنا هس إنما أن عادي هن أو هاد الدبك لغا سوق هذا سنبري واحد الدبك لغا سوق هذا لوقي قعني مدح لما قلي كرت لكن هي إيش الراعي كرتا فهمت مركا دي هستان وحا سوق هذا فنان كينا شرم بوي إنما عادي مأهن أسبوعا كلية وحمروها لبحب أبو داس نوحا له أسيقا إيو الفنان فردقن إنما عادي مأهن waxa waaye heesiisna understandable waaye because dadku waxay u jecel yihiin aniga ninkana isleeyahay wax kale ma ahan waa luqadda oo wuxuu ka dhigay luqad basiid ah fudeed oo ka dhigay hadda u fiirisid heesaha kale because waxa ugu badan dadkii qurbaha ku dhashtay dadkii qurbaha ku weynaaday dadkii qurbaha wax ku dhaleen oo Soomaaliga hilmaamay wuxuu u fudeeyay in heesaha Soomaalida ay dhageystaan dadkaasna way tirab badan yihiin maanta daal la fiiriyo dadka Soomaali degan iyo dadka maqan bani waxa isleeyahay commentigaada noogu soo qor marka labadaba wax badan aniga waxa isleeyahay Soomaali saasa uma leena hey okay heestan wuxuu u qaaday hablaha Soomaalida inaba caadi ma aan hablaheena macal ajnabiga aan soo dhaheen hablaha Soomaalida looma gari karo iska dhaaf anakaba ajnabiga baa soo qeydiyay oo dhahay Soomaalida caadi ma ahan of course this song waxa waaye waa hablaheena waaye I hope in video gaan habla badan ee daawan doonaan waxaan leeyahay maadaama hees ininka dhan lagu soo qaaday all in one yar iyo weynba waxa noo tihiin maamooyina noo tihiin heestina rabnaa inaan dhageysano oo reaction ka bixino marka sit back and relax wala bibi raba of course heesta waa heesta hablaha Soomaalida waa buubi rabnaa in la dejiyo xataa intee marka ay of course I like waxa lagu bilaabay hablaha reer bari inaba caadi ma aha daabaratidna ma ka maarmaysid boo ku dhigsanay marka xafaanta marka aad dhaqan iyo hindi u daay kuwa jigjig jooga inaba caadi ma aha meesha ka salaamoona waa macaan hablaha Soomaalida waa macaan hablaha Soomaalida ma kala dhacaan yani maadaama Soomaali magaalooyinka tiro badan tahay heestan aan lagu keeni karin marka waxay noqonayaan marka qaar magaalo inuu sheego laakiin waxa laga yaabaa magaalo aad degan tahay in oo ka boodo fanaankan ma aha laakiin hadda adiga xaafada degan tahay magaalada aad degan tahay meeshan magaceed lagu soo qaadi waaye ma ahan in adiga fool xun tahay marka waxa waaye Soomaalida dhan hablaha Soomaalida yar iyo weyn meel alla meesha rabaan ha joogaan kulligood way wada shidan yihiin boqolkiiba boqol tawaran ma tagtabaran waran dhahariyta lee xorta magaran bohod lebi ani iyo adi bararan my family burco iga badan aku baramay my family burco iga badan Somaliland is in sahib maxaa ku dhaane shanta Soomaaliya ku dhahay maxaa ku dhaane shanta Soomaaliya ku dhahay sahib shanta Soomaali ku dhahay sahib burco is in Somaliland is in bro yes is in way ku jiraan sahib FIFA sahib no dawla iyo wad markaasta wax kale iska daayay luqad labaad aku baro taagan yahay af Soomaaliga iyo maamaay laakiin waxa u maleynayaa maamaayga uu dhib badan yahay u maleynayaa because Soomaali badan ma arkin oo ku wada hadlaya doo fududaan lahay maamaay waxa ku hadlahay Soomaalida dhan ku wada hadlayd so that's mean waxyara ku wada hadlayso that's mean luqadaas way adag tahay fadlan commentigaada noogu soo qor waxa ka aaminsan tahay luqadaas inay adag tahay iyo inay fududahay let's go naga dhalatay Ilhaan Umar ragig hadaa maqasho dumar waa hormar waxa naga dhashtay Ilhaan Umar oo Mareykanka joogta war xataa wax kale iska dhaafay dadkii Soomaali degnaay xataa inuu ka tagay dadkii oo qurbaha jooga xataa waa lagu soo daray meesha so all in one waaya dadka kaliya oo Soomaali jooga ma all in one I like it absolutely wonderful has let's go haye
gaarisa waan gaari dowla haye garowa geed hoos harsanaya inaba caadi maahan maraxow meesha ku aragtay hablaha faani aldhooya marka erigaas wuxuu ula jeedaa hadda waxaa soo baxay nin ayaantan TikTok inuu soo galo hablihii ku da'ooyaba hablihii oo ku da'ooya ninka waxaa la dhahaa xaliya la dhahaa macallin xaliya ninkaasoo hadda ugula jeedaa hablaha u naxariiso waa lasoo dhexgeliyey ma fahamtay waxaa u maleynayaa sharma boy inuu hees ninkaas usoo qaadi doono asigade waa ka sugeynaa taas haddaa is leedahay fadlan commentigaada waa inuu muhiim hoosna kusoo qor waa macaan gabdhaheena kulligood maba dhacaanba maxaa fahamta marka adiga heestan inaba caadi maahan waa hees loogu talagalay dumarka Soomaali waxaan jeclaan lahay dumar walba oo Soomaali ah videogan ee daawanayaan fadlan waxaan niga codsanayaa inaad like-ta isiisiin share-kana ay ugu qabatiin commentigiina hoos ugu soo qortiin maadaama videogan uu idhaafi waayo waxaas dhahay inuu reaction ka soo bixi soona dhageyso waxaa loo qaaday hablaha Soomaalida waxa waaye heestan waa hees qaali ugu tahay waa hees a beautiful song with a beautiful Somali woman fadlan channelka da ku cusub tahay like tana si subscribe kana noo saar share kana noo dheh saa u helna asxaab wanaagsan sida adigoo kale haddana waxaa ku dhahanaa stay safe stay clean nabadgelyo